الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. waxaynu soo gudbin doonaa hal xadiid oo ka mid ah xadiidtii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. waano iyo wacdi ayaa markaa xadiidka ku duugan, khayr badan ayaa markaa aynu ka faa'iidaynaa insha allahu tacaala. waynaan u baahannahay inaynu kolba wanaagga iyo khayrka isxasuusino oo ilaahay jalla wacalaa xaggiisa inuu iskugu yeedhno, xumaha aynu iskooga digno waa midaan u baahannahay. aniga oo hadlaya iyo ciddii dhegaysanaysaa qof waloo inaga mid ah uu u baahan yahay waanadana qalbiga ku dega, qalbiga toosnaantiisa ayaabay sabab u tahay. wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam, xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi ay soo saareen, nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam, waa xadiidka abu hurayra. isagoo saxaabadiisa la jooga ayaa waxa uu yihi: man yaakudu canii haulaai alkalimaat fayacmalu bihina aw yucallimuhunna man yacmalu bihina. yaa kelmadaha iga qaadanaya oo ku camal falaya ama baraya cid ku camal fasha. saxaabigii abu hurayra ayaa deeta yidhi: nebi allow, anaa ku camal falaya oo cid ku camal fashana baraya. rasuulku calayhi salaatu wasalaam 5 arrimood buu u sheegay. wuxuu ku yidhi: ittaqi lmaxaarim takun acbad annaas. waxaad iska ilaalisaa ood ka fogaataa maxaarimta. ilaahay jalla wacalaa waxa uu kuu diiday, waxaad noqonaysaa acbad annaas, dadka ka ugu cibaadada badan leh. ilaahay waxa uu inoo diiday jalla wacalaa ee qur-aanka lainoogu diiday, wuxuu rasuulku inoo diiday calayhi salaatu wasalaam ee sunnaha saxiixa ah lainoogu diiday. in laga dheeraadaa, waa in laga istaagaa, waa in layska jiraa. markaasaynu noqonaynaa dadka kuwa ugu cibaadada badan leh. wax badan baa laynoo diiday: gaalnimo iyo shirki, naf xaaraan ah dilkeeda inaynu la nimaadno ayaa laynoo diiday, beentii iyo isku dirkii iyo markhaatigii beenta ahaa iyo sixirkii, waxyaabo fara badan oo muxaramaad ah oo laynoo diiday baa jira. kuwa aynu sheegnay iyo kuwa lamidka xaaraantaaba in laga dheeraadaa laynaga rabaa. waxaa la mid ah waxyaabaha laga dheeraanayo ee layska ilaalinaya xaaraanta inaga ah, tegista laga tegayo waajibaadka. oo dembiga iyo xaaraanta qofku uu ku dhacaa waa laba mid: in shay loo diiday uu ku dhacaa waa xaaraan, wax la amray inuu la yimaado inuu ka tagaana tegistaasi waa xaaraan. marka ittaqi lmaxaarim markuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, waxyaabaha xaaraanta inaga ahi waa wixii layna amray inaynu ka tagno, waa tegista aynu ka tegayno wixii layna amray, ama aynu ku dhacayno wax laynoo diiday. taas ayaynu ku noqonaynaa dad cibaado badan. alxasan albasri raximahullah waa ka yidhi: maa cabada alcaabiduun bishayin afdala min tarki maa nahahum allahu canhu. kuwa cibaadaystaa ilaahay kumay caabudin shay ka fadli badan tegista ay ka tegayaan wixii loo diiday. waxaa laynoo diidayna waa xaaraan, aynu ku dhacno shay laynoo diiday inaynu ku dhacno, aynu ka tagnaa. inaynu ku dhacno maaha. wixii layna amrayna tegista laga tegayo waa in yadnaa aan lala iman, ee wixii layna amray sidiisa aynu la nimaadnaa. nabigaa inala calayhi salaatu wasalaam: ittaqi lmaxaarim takun acbad annaas. xaaraan badan ayaa dadku waxa weeyaan hareerahooda waxa weeyaan yaala. wax la eego iyo wax la taabto iyo wax loo dhaqaaqo iyo wax lagu hadlo, xiqdi iyo wax qalbiga lagu qabsado, intaa dhammaanteed aynu ka dheeraano ilaahay jalla wacalaa awgii inagoo uga tegayna. arrinka labaad uu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam: warda bimaa qasama allahu laka takun aqna annaas. ilaahay jalla wacalaa waxa uu qeyb ahaan kuu siiyey, raali ka noqo, dadka ka ugu qanisan baad noqonaysaa. qaninimadu waa ta qalbiga, xoolo badnaan ma aha sida dadka qaar u fahmeen. imsaa xoolo badan haysta haddana qalbiga faqiirka ah, imsaa xoolo badan iyo hanti badan iyo nasiib weyn iyo dheef weyn adduunka ku leh, haddana naf ahaan waxa weeyaan fuqaro masaakiina way badan yihiin. sirtu waa inuu qofku raali ka noqdaa, kuna qancaa qeyb ahaan ilaahay jalla wacalaa waxa uu siiyey. qofka raba qalbigiisu inuu degaa, raaliha ka noqdo rabbi jalla wacalaa waxa uu siiyey. qofka raba qalbigiisu inuu dego, xus ilaahay jalla wacalaa ha ku dejiyo. alaa bidikri illaah
تطمئن القلوب إلهي حسكي سي قلوب تكدك تابو ربي جل وعلا أوليه وحرسوك عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا جارك هذا وناجي مؤمن بعد نقن دونتا على مدها إيمانك أيا لقد دقي وناجين تجارك لو ناجيني لكا جارك أن وناجينه وناجينت لو ناجينا يعني وحيكو إيمان إيسا وناقا والله فرق حمانتا أو لو ديدو سلامتا الله سلاميو سلامتا أو لقا قادو hadduu duco kuugu yeedho inaad ka ajiibto waxaad ku diido sharciga hadduuna jirin inaad dhibtaada ka haysato inaad wixii dhib uu kuula yimaado aad taxamusho u sabirto inaad xaaladihiisa aad baadhood ogaato baahida uu baahan yahay walaalkaaga jaarka ah si aad u caawiso inaad asturto cirdigiisa sharaftiisa aad ilaaliso inaad u nasteexayso waxaas oo dhan waa xuquuqda iyo wanaagga iyo ixsaanka jaarkeenu inaga rabo loo baahan yahay inaynu la nimaadno si uu iimaankeenu iimaan dhamaystiran uu noqdo waaxiba linnaas maa tuxibu linafsika takun muslima waxaad dadka la jeclaataa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaad naftaada la jeceshahay muslim baad noqon naftaada wanaag iyo khayr baad la jeceshahay walaalkaa la jeclo naftaada xumaan iyo shar lama jeclid waad la neceb tahay walaalkaa la necebow waxaad naftaada la neceb tahay la jeclow waxaad naftaada la jeceshahay calaamadaha islaamnimada wanaagsan ayaa arrinkaasi uu ka mid yahay walaa tukthir الضaxik faina kahrata الضaxiki tumiitu اlqalba ha farabadin qosolka buu nabigu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam maxaa yeelay qosolka faraha badan leh qalbiga ayaabuu dilaya qalbigaaguu dhaawacaya ilaa qalbigaaga uu ku dhawaado inuu dilo amaba uu dilo sidaa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa qosol badnaan uu qofku aada u qoslo qosol xadkii ka baxsan looma baahna farxadda uu qofku farxayo uu walaalihii kula kulmayo dhoola cadaynta iyo qosolka iskuugu jira lama diidana shayga xadkiisa ka baxaya ayaa la diidaya hadduu shaygu xadkiisa dhaafana waxa weeyaan oo xadkuu sharcigu u dejiye uu dhaafo falxumuu isku bedelaa shay wanaagsan ma noqdo kelmadaha kooban ee shanta ah ee uu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam aynu la nimaadno aynu ku camal falno dadka walaalaheena aynu u gudbino si iyaguna ugu camal falaan ilaahi subxana wa tacaala haynagu anfaco dembigeena iyo dembiga waalidkeena ilaahi subxana wa tacaala ha dhaafo sala allahu wasalam wabaaraka waancama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira